waxay ila naqatay in aan geeriyoon rabo in aan dhiman rabo dhimashaduna saaxiib waa xaq hadda waxaan ku jiraa xaalad aad u xanuun badan xaalad waxaan dareemayaa cabsi markaas anigu waa qayl dhaamina subxaanallah waxa qabsaday iyo arrinta ku dhacday xaqiiqdii waa arrin qalbigaaga gilgilayso waa arrin qofkii dareen iyo muslimnimo bini'aadantinimo ay ku jirto uu damqanayo oo uu gilgilanayo amaba uu u ducaynayo wiilkan idiin muuqanaya inta badan waad garanaysaan waxaa la yidhaahdaa socdaal ayaamahan baraha bulshada waa uu ka maqnaa oo active ma uusan ahayn ciwaankiisuna muuqaallo badan ma uusan soo boosta garan jirin siduu horay ma garanaysaa muuqaalada u soo gelin jiray ma uusan u soo gelin jirin wiilkani marka waxaa ku dhacday inuu barihii bulshada ka maqnaado in asxaabtiisii uu la caweyn jiray uu ka maqnaado in uu keligii qol ku gooni noqdo oo dadkii uu ka dhex baxay haddaba wiilkani qisada ku dhacday bal ila dhegaysa marka hore riyo naxdin badan riyo qalbigayga gidisay xaaladeed ani ma qiyaasi kari xaaladeeda lama ogi riya waxaan ku riyooday indhahayga ilinka keentay welwel igu beerta cabsi far badan igu abuurtay hadda waxaan ku jiraa xaalad aad u xanuun badan xaalad waxaan dareemayaa cabsi xataa ma oggudo qof inay ii soo gasho gurigeyga waan baqayaa heer waxaan marayaa dadka xataa aan ka cabsado waxaan arkay laba naag oo indhahooda holac ka kacayaan oo meel mugdi igu sii jiidaayo markaas anigu waa qayl dhaamina waxaan leeyahay badbaadiya saaxiib waxay ila naqatay in aan geeriyoon rabo in aan dhiman rabo dhimashaduna saaxiib waa xaq talawaan qof ka galay qofaan qof ka gala ma aqaan qofaan nafsi ka gala ma aqaan qof haween oo dhibaatay ma jiro wala saaxiib subxaanallah waxa qabsatay qiso la yaab leh wuxuu leeyahay waxaan arkay riyo murugo iyo dhibaato igu beertay middaa oo dadkii waxaa weeye aan kaga gooni noqday taa oo dadkii dhan aan ka cabsanayo keligeyna aan qol isku xiray wuxuu leeyahay waa riyooday oo riyadani waxay ku kalliftay inuu gooni noqdo dadkiina uu ka dhex baxo dadkii dhanna uu ka cabsanayo wuxuu leeyahay waxaan arkay laba dumar ah oo waxaa weeye indhahooda holac ka baxayo oo meel cidlaa igu jiidayo riyo aad u murugo badan qof weliba oo arko oo qalbi iyo dareen iyo soomaalinimo iyo muslimnimo ay ku jirtana kolley wuu u ducaynayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala dhibka iyo kurbada ilaahay ha ka dulqaado oo ma garanaysaa waxaa weeye cariiriga qalbiga iyo waxa uu dareemaya iyo mugdiga iyo dhibaatada ku gadaaman ilaahay ha ka dulqaado wiilkaa dhallinyarada maskiinka ahi waxaa macquul ah inuu ilaahay jecel yahay waxyaalo qalad ah iyo dembiyaal waaweyn uu ku jiray ilaahayna u digayo si ma garanaysaa oo looga dhigaya hanuun iyo hidaaya ayaa suurtagal ah waxaan filayaa markaad qisadan aragtay waad cabsatay ama adiguba shakhsiyan haddii ay kugu dhici lahayd qisada noocaan ah waxaad dareemi lahayd cabsi iyo welwel aad u tiro badan dhallinyaro intayada badan waxaynu ku soconnaa waddo qaldan waxay nala tegay ee nala dhaqaaqay dhalanteedka iyo dhaqdhaqaaqa dunida waxaynu si qaldan u isticmaalnaa had iyo gooraale caafimaadka iyo dhallinyaronimada uu ilaahayna siiyey laakiin waxaa xaqiiq ah in adiga iyo aniguba nala weydiin doona caafimaadkan iyo dhallinyaronimadan waxaan wakhtiganaga ku bixinnay waayo caafimaadku iyo dhallinyaronimada iyo ma garanaysaa firfircoonidu waa nimco ilaahay uuna siiyey weeye dhanka kale waxaad ogaataa maalinta aysan har jirin waxaa jira qof dhallinyaro ah oo ka mid ah dad carshiga ilaahay harsanaya ka mid ah ayaa jira muxuu yahay qofkaasi waa qof dhallinyaro ah oo ku barbaaray diinta ilaahay waa qof dhallinyaro ah oo intuu dhallinyaronimadaha shahwadiisa iyo naftiisa aysan la tegin oo ku barbaaray diinta ilaahay oo ku gaboobay oo xeragga ilaahay qabsaday weeye dhallinyaronimada iyo caafimaadka yagu waxaa weeye maanta 90% si qaldan ayaynu u adeegsanaa kaliya waxaynu geerida xasuusanaa waxaynu xasuusanaa in adduunyada laga tegayo kaliya waxaynu xasuusanaa in maxaa weeye adduunyada laga safrayo oo aakhare ay jirto maalinta nala qabto ama aynu xanuun dareenno ama waxaa weeye qiso murugo leh aynu aragne kaliya ayaan allah xasuusanaa maalinta ayaynu xasuusanaa in ay jirto noloshani nolol aan ahayn sidoo kale waxaynu xasuusanaa maalinkii aynu aragna qof inaga mid ahaa ama asxaabteenna ahaa ama saaxiibkeenna ahaa
oo geeriyooday markaynu aragna ayaynu xasuusanaa in ay jirto nolol kale, in ay jirto xisaab, inay jirto xisaab marka qura ayaynu xasuusanaa. waxa aan kula dardaarmayo naftayda iyo naftiinuba waxa weeye cabsida ilaahay. waxaad ogaataa adiga iyo aniguba in aynu noolaanaynin. haddii 100 sano lagu siiyo iyo haddii waxa weeye sanado yar lagu siiyoba waxa weeye maalin maalmaha ka mid ah qof weliba oo inaga mid ahi waxa weeye waa uu geeriyoonayaa oo adduunkan waa uu ka faaruqayaa. ma ogid inta lagu soo jira, ma ogin inta noola soo jira. waxa weeye dadkuna way dambaabayaan. qofka mu'minka ama muslimka wuu dambaabayaa, qaladna wuu ka dhacayaa, laakiin waxa ugu wanaagsan qofkii qaladkiisa ka soo laabto. dadka waxa ugu wanaagsan kuwa in gafa qalad galay laakiin qaladkoodii ka soo laabtay oo Allah u soo laabtay oo waxa weeye xasuustay in ay jirto aakhiro iyo maalin la isxisaabinayo, in ay jirto xasuustay ayaa ma garanaysaa dadka ugu wanaagsan. waxaan leeyahay wiilkan dhalinyarada ah ee walaalkeen ah, ilaahay subxaanahu wa tacaala qalbigiisa Allah u qaboojiyo, murugada iyo culayska saaranna ilaahay ha ka dulqaado. dhammaanteen waxa weeye aynu ka toobadkeenna oo ilaahay aynu u toobadkeenna oo aynu ogaana inay xisaab inaga dambayso, oo aynu ogaana in waxa weeye aynu halkaan joogaynin oo meeshaan ay tahay waxa weeye daarul amal ee halkaan aysan ahayn daar lagu nagaanayo. ilaahay subxaanahu wa tacaala xaqana waafajiyo, ilaahay gafkeenna iyo geerideenna ma kulmiyo, xaqana allahna waafajiyo. xaqa iyo wadada toosan ee siraadul mustaqiimka ilaahay waxa weeye hayna waafajiyo oo allah ay nagu toosiyo. dambiyada maalin walba inaga dhaca iyo khaladaadka inaga dhacana ilaahay subxaanahu wa tacaala isaga waxa weeye xaliim ah oo dulqaad badan. ilaahay subxaanahu wa tacaala isaga qafuurur raxiim. ilaahay subxaanahu wa tacaala haynoo dambi dhaafo oo dambigeen ilaahay haynaga mayro. inta murugta iyo dhibaatada haystana ilaahay ha ka dulqaado. inta ma garanaysaa xanuunsanna caafimaad Allah ha siiyo. inta dhimatayna ilaahay ha u naxariisto. cimri dheer cibaado lehna ilaahay hana siiyo. khaatumadeennuna ilaahay khayr hay noogu qatimo. riyo naxdin badan, riyo qalbigayga gidisay. xaaladeed ani ma qiyaasi kari, xaaladeedana ma ogi. riya waxaan ku riyooday indhahayga ilinka keentay, welwel igu beerta, cabsi far badan igu abuurtay. hadda waxaan ku jiraa xaalad aad u xanuun badan. xaalad waxaan dareemayaa cabsi ah. xataa ma oguli qof inay ii soo gasho gurigeyga, waan baqayaa. heer waxaan marayaa dadka xataa aan ka cabsado. waxaan arkay 2 naag oo indhahooda holac ka kacayaan oo meel mugdi ugu sii jiidayo.